يبقوا مقدا نلا الأقوبة عارنا الليل هلا يبقوا مقدا يا ودقل سدا وباحة الليل هلا يبقوا مقدا waxaan aad uga xumahay in madaxda dawladda qaybtood xaaladda hadda jirta sidii la rabay inay wax u maamuleen ee mararka qaarkood isku dayayaan dantii guud ee loo igmaday inay u shaqeeyaan danahooda gaarka ah iyo sida iyaga u arkaan maslaxadooda siyaasadeed لا بابولي لما داني لوروري gudiyada fulinta ama madaxweyne ama ra'iisul wasaare waxa loo igmado wixii dadku ku heshiiyay inay fuliyaan waxaan aad ugu boorinayaa madaxda dawladda dhexe iyo kuwa federaalkaba shirarkii ugu dambeeyay ee qabsoomay dadka Soomaaliya suluug badan bay ka muujiyeen waxaad moodaa inay qol gaar isku xireen taladii dalkan ay gaar la noqdeen بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رمضان كريم وحان مركو ugu horeysa mahad celinaya dadkii soo qaban qaabay xafladan aad ka u quruxda badan qiimaha gaarka ah ee leh waxaan ilaahay ugu baryayaa inuu miisaanka xasanaad ugu daro hawsha ay qabteen anoo og Ramadan waliba aad u dheer oo 20 saac dadku inuu sooman yahay waxaan sidoo kale uga mahad celinayaa dhammaan intii soo ajiibtay halka timid ee ka soo qayb gashay xafladan quruxda badan oo sida runtii farxadda iyo walaaltinimada leh ay ku dheehan tahay soo dhaweeyeen waxaan si gaar ah u salaamayaa gabdhaha runtii hadalladii halka aan ka dhageystay intaan hadalkay u guda gelin buraamurkii xaawo waxaa ku jiray iyadoo calanka la hadlaysa cirkaad u eg tahay rabbiyo waa laga cabsado runtii waa arrimaha u waaweyn ee ugu xambaaray inaan hawsha siyaasadda aan galo waxaan aad u dareensanahay xanuunka gabdhaha Soomaaliyeed iyo hooyooyin Soomaaliyeed ee qabaan dawlad la'aan xaqiiqdii dawlad la'aan dadka carabta afkooda waxay ku fasiraan dawlad la'aan waa diin la'aan sababtoo qofka cirdigii iyo sharaftii iyo karaamadii oo dhan baa burburaya waxaad ogtihiin in dadkeenni badaha ku leeanayaan waxaad ogtihiin inay dadkeenni qayb gaajo u dhimanayaan waxaad ogtihiin qayb badan in ay maalin walba dagaal aan sabab lahayn ay u baaba'ayaan waxaa intaa u sii dheer dad aan waxba haysan oo haddana wax isku haysta haddii aan dad wax haysta ahaan lahayn inaan wax isku qabsanno waa la garowsan lahaa laakiin dad dhammaan wixii hanti ay lahaayeen aan gacantooda ku jirin hadday khayraad tahay haddii ay tahay madax bannaani hadday tahay sharaf iyo karaamo intaba dadka Soomaaliyeed xaqiiqada inaan isu sheegnaa habboon way maqan tahay haddana waan heshiin la'nahay waxaan aad u garabsanahay inay halkaas u baahan tahay in dadka Soomaaliyeed ay si dhab ah u wada hadlaan oo caqligu uu taliyo oo dadka Soomaaliyeed waxa ka maqan waxay heli karaan oo kaliya markay midnimadooda iyo wadajirkooda ay dib u soo ceshadaan runtii maanta xaaladda dalku marayo wax badan kuma moogidin inaan wax badan ka iraahdo waqtiga oon masaamaxayn saamaxmayso laakiin waxaan rabaa inaan meelo yar yar ku istaago runtii dalkeennu dadka intiisa badan halka jooga waxaan u malaynayaa dadkii u horreeyay ee burburku
nabadgelyo darraa dadkii soo ori jirtay maalmo dhoweedna waxaan u malaynayaa mawjado fara badan oo dadoo mar labaad qaxay inay yimaadaan dadka faraha badan ee hadda qaxaya intooda badan nabadgelyo darrada waxaa uga weyn dhaqaale darro iyo nolol xumo dalkeennoo qani ah oo barwaaqo ah oo runtii xeebta u dheer Afrika leh khayraad fara badanna haysto waxaa dadkeedu u laayihiin waa maamul xumo iyo dawlad aan hanan waajibaadkii laga rabay marka waxa u baahan oo in laga wada shaqeeyo waxa weeye sidaan u soo ceshan lahayn dawlad hanata inay dadkeeda u shaqeyso xaaladda guud ee dalka dhinac kale marka laga eego waxaad moodaa ka soo reyn inay jirto wax walba waxa la rabaa siday yihiin in loo miisaamo loo sheego dalku runtii kabasho badan baa jirta dhinaca amniga marka la yiraahdo waxaan dareemayaa in dalku meelo fara badan oo amni darro ay jiri jirtay inuu amnigoodi soo roonaanayo magaalooyin fara badan oo isku socodkooda uu adkaa in hadda la isu soconayo waxaa intaas sii dheer dhinaca siyaasadda horumar badan inuu ka jiro dalka maamullaha ka dhismaya u istaagan inay hawsha ummadda qabtaan nidaam federaala dalku qaatay dadka Soomaaliyeed baa ku heshiiyey iyaga xal mooday laakiin in afka uu kaliya noqdo ma la rabay waxa la rabaa in uu dhulka ka shaqeeyo waxaad ogtihiin maamul goboleedyada dhismay wax badan bay ka tareen dadka noloshooda dadkii dhawaanihiin safarada ku tagay magaalooyinka qaybtooda ayaa marxaanti ka kici kara magaalada Kismaayo iyo gobolka Jubbada Jubbaland isbedel baa ka jira koonfur galbeed bay dhaba hadda tagtaan hadda isbedel xoog loo la taaban karaa ka jira isku socodka magaalooyinka meelaha qaybtood wili waxa ku jira dadka nabadda u diiday laakiin meelo fara badan oo la gaari kara ayaa jira dhaqdhaqaaqa isku socodka iyo deganaanshaha siyaasadeed ee hadda jira ee kooban wuxuu saldhig u noqday dhaqaalaha dalku inuu kobac galo taas waxa ka marxaanti kacay hay'adaha dhaqaalaha ka shaqeeya adduunka marka dib u fiirsaan warbixinadii IMF iyo World Bank waxa Soomaaliya hadda la garawsaday inuu kobac jiro kobacaasi hadduusan helin dawlad sax ah oo maamusha sidii kaabayaasha dhaqaale iyo dalka ammaankiisa siyaasaddiisa ay u noqon lahayd mid xasiloon meeshay inta yaroo la haysto dib bay u dhacaysaa waxaan rabaa inaan si cad inugu sheego wax badan oo wanaag oo dalka hadda ka jira dadka Soomaaliyeed wax yar bay ku leeyihiin adduunka waxaan rabnaa inaynan ka gabood falin runtii taageero mug leh oo dhinacyada amniga iyo dhaqaalaha iyo siyaasadda ayaa dalka adduunku siiya dalkan aad joogtaan ka mid oo Denmark waa markii saddexaad oo aan imid saddexda mar oo imid wasaaradda arrimaha dibadda qaybta qaabilsan Afrika inta badan waa la kulmayay runtii aad bay waxay uga walwalayaan dalka Soomaaliyeed inuu dego maxaa yeelay waa mas'uuliyad guud waa mas'uuliyad bini'aadanimo waa mas'uuliyad dawladeed oo caalamku waa dal isku xiran dhibka maanta halka ka dhaca Sweden iyo Norway iyo wadamada kale uu taabanaya sidaas dhibka Soomaaliya ka jira wadamada dariska iyo kuwa caalamka uu saameyn ugu leeyahay deganaanshaha Soomaaliya inaan anagu ka shaqeyno oo istaagna la rabaa caalamkan aan kaalmo weydiisano kaalmada Soomaalida la siinayaan waxa la rabaa siday tahay in aan uga soo baxno sidaad ogtihiin halka laga sheegay waxaan dhawaan ku dhawaaqnay xisbi la yiraahdo Somali League for Democrats ama ka oo astaantiisu tahay qorax soo baxaysay if soo baxayo oo aan rabno inay Soomaaliya hormuud u noqoto inuu iftiinka soo baxo waxyaabaha socdaalkayga ugu muhiimsan waxa kamid ah inaan arrimahaas inii soo bandhigo oo qayb ka qaataan maxaa yeelay dadka dimuqraadiyadda iyo dawladnimada dadka Soomaaliya jooga maanta idinka u aqoon badan maxaa yeelay dal degan oo siyaasaddiisu degan tahay oo la isdoorto oo qofka la doorto uu noqdo qof ummadda u shaqeeya yaqaan baa tihiin marka inaad gacan ka geysataan Soomaaliya waxay u baahan tahay in wax la baro in ilbaxnimada iyo ismaamulka la baray u baahan tahay in dimuqraadiyada iyo sida wax loo wadaaga la baray u baahan tahay waxyaabaha halka intaan joogay aan la kulmo waxa kamid ah xisbiyada dalkan qaybo kamid ah xisbiga Social Democrats iyo xisbiga Alternative labadaba madaxdooda iyo niman baarlamaan kamid aan la kulmay waxaan kaloo kulan insha Allah rajaynayaa maxad u qaabilsan xisbiyada iyo dimuqraadiyadda intaba waxaan kala hadlaayay sidii shacabka Soomaaliyeed iyo dawladda Soomaaliyeed gacan uga geysan lahaayeen in la baro wax ay wada leeyihiin
runtii reer waa lagu soo daalay kooxuhu waa fiican ilaahay kooxo si isu urursaday oo aan dadka ka wada tirsanayn oo kooxaha diimaha runtii anuu halka waxaan ka caddaynayaa inay dalka Soomaaliyeed marxaladda soo socota xal u lahayn dad Soomaaliyeed oo muslim ah oo diintooda jecel oo inay ku dhaqmaan ah baan nahay laakiin in la kala sheegto sax ma ah qofku waxa la rabaa diintiisa iyo dhaqankiisa inuu ilaashado laakiin dawladnimadu waxay u baahan tahay in la wadaago oo wax cad dastuurka in la ixtiraamo qawaaniinta dalka in la ixtiraamo qofka barnaamijkiisa uu qabanayo markuu soo bandhigo in lagu doorto ama lagu diido haddii wixii uu soo bandhigay uu ka soo bixi waayana in lala xisaabtamo waxaan u baahannahay dhaqanka is-xisaabtanka in la horumariyo waxaan u baahannahay inaan dawladnimada gacan adag ku qabanno dawladnimada dad gaara ma leh madaxda si gaara inay wax soo bandhigaan bay leeyihiin laakiin si gaara mas-uul uguma saarna dadka Soomaaliyeed oo dhan ayay mas'uuliyaddaas ay sugaysaa waxaanan ka codsanayaa dadka halka fadhiday dad Copenhagen jooga inay xisbigaas kana soo qayb galaan gacanna siiyaan in lagama leh waa inii furan yahay cid walbana waxa la rabaa inay contributionkeeda ay ka qayb qaadato maxaa igu kallifay inaan aqbalo markay saaxiibada ii soo jeediyeen inaan xilkaan u istaago waa su'aal u baahan inaan wax yar dul istaago runtii muddadii u dambaysay waxaan soo ahaa xildhibaan waxaan ahaa sida la sheegay wasiirka qorshaynta iyo iskaashiga caalamiga intii ka horreysay deegaanada Soomaaliyeed shirar badan oo dib u heshiisiina iyo kuwa arrimo siyaasadeed inta badan waan u dhawaa waa ka qayb gali jiray dadkii dalka la noolaa baan ahaa dalka intii burburka joogay dalka baan ka dhex shaqeynay waan ka baxbaxayay meelaha u dhow wadamada u dhow waan tagayay mararka qaarkood ama Carabaha ama Afrika laakiin dadka sida dheer uga soo fogaaday oo aan u garaabayo dadka qaaradaha ka yimid way ku adag tahay inay si dhow ula shaqeeyaan dalka maxaa yeelay masaafaduna waa fog tahay duruufaha westernka yaalana way adag tahay inuu qofku maalin walba uu dhaqdhaqaaqo oo dalkii uu ka warhayo laakiin anu inta badan dalkan ka warhayay shaqadayduna inta badan waxay ahayd shaqo dadka u shaqeysa waxaan ka soo shaqeeyay arrimaha bulshada waxaan ka soo shaqeeyay arrimaha ganacsiga iyo dhaqaalaha oo muddadii u dambeysay aan dhinaca ganacsiga ku jiray waxaan mar walba ahaa nin ka shaqeeya dadka Soomaaliyeed sidii dawlad u dhisan lahaayeen waxaan garowsaday 2012 anoo ka mid ahaa dadkii ka qayb galay shirarkii Soomaaliya dawladdiisa dib loogu dhisayay ayaan goostay inaan si rasmi ah uga shaqeeyo ee aan noqon cid ka talisa oo kaliya xildhibaan Soomaaliyeed baan noqday wasiir baan soo noqday runtii waxay fursad ii siisay xog fara badan oo dalkan uu leeyahay inaan ogaado waxa ii soo baxday dalku inuu dad tabayo runtii dalku wuxuu tabayaa dad daacada sida la sheegay wuxuu tabayaa dad aqoon u leh dalka dhibaatada haysata wuxuu tabayaa dad ay dhab ka tahay in ay dalkan shaqo u qabtaan waxaan isku tuhmayaa in aan muddadii aan shaqeynayna dadku igu barteen iguna dhiirigeliyeen in ujeedada u weyn oo aan ka leeyahay inaan ummadda u shaqeeyo inay tahay inay dadkaygu sharaf iyo karaamo helaan waxaa ii muuqata maanta hoggaanka Soomaaliyeed in looga baahan yahay inuu taliyo inuu wax tusaaleeyo inuu dadka wanaagsan uu ku dhiirigeliyo inay shaqada dalka qabtaan inuu cadaalad u sameeyo waa qodob aad u adag cadaaladdu sida la sheegay in badanna waa la og yahay laakiin cadaaladda waxaa ka muhiimsan qofka inuu daacad yahay taasaan anigu number 1 ka dhigay hadduu daacadnimo ka tahay inuu qabto xataa hadday wax ka khaldamaan wax u eg inay cadaaladdu ay khaldan tahay marka loo sheego wuu qabsoomaya laakiin qof u bareeray in uu xumaan sameeyo maanta dhan haddii lagu akhrinayo cadaalad sameeyo way adag tahay inuu cadaalad sameeyo waxaan aad u tabayaa dadka Soomaaliyeed qodobka ugu muhiimsan waxa weeye inay helaan dib u heshiisiin siyaasadeed dadka Soomaaliyeed dagaaladii sokeeye ma ahayn dagaalo reero isdagaalay ka dhashay ama dhaqankii lagu yaqaan dadka Soomaaliyeed reero ceel iyo biyo iyo mag iyo waxa la yiraahdo aana isku qabtay ma ahayn dagaalo sokeeyo oo dagaalo siyaasadeed ay ahaayeen khilaaf siyaasadeed baa jiray siyaasadda lagu heshiin waayay dadkii baa marka siyaasadii reero loo bedelay oo la isku hubeeyay hadda waxaan u baahannahay inaan dhahno reeruhu heshiiyaan waxa ka haboon in la yiraahdo siyaasiyiintu heshiiyaan maxaa yeelay Soomaalidu waxay tiraahdaa markay ceelaliyo heshiisaa xoolo biyo cabaan
waxa ay sartu ka qoransan tahay waa dadka hoggaanka si dadka u heshiiyaan maxaa idinka door ku leedihiin marka dadka Soomaaliyeed khaasatan dadka dalalka dimuqraadiga ku nool waxay doorka ugu weyn ku leeyihiin inay qayb ka qaataan sidii loo soo saari lahaa hogaamiyaal dhab ah oo daacada oo Soomaali ah oo dadka Soomaaliyeed diyaar u ah inay isu keenaan waxaad ku leedihiin inkastood cod toos leedihiin laakiin cod dad baa leedihiin waxaad awood u leedihiin nin walba dadka Soomaaliyeed waa reeraha Ilaah baa naga dhigo horta inaan ka cararno maaha laakiin waxaan rabnaa reeraha sidiisa wanaagsan inaan u adeegsano qof walba qofka xigtada u ah inuu ku booriyo inuu wax ama isagu markuu kala saarayo dad odayaal dabcan ogaasiyo iyo suldaanna nala joogo hadda waayadan dambe iyaga wax xula naftirkooda hadaysan hagaagsanayn oo qofka wanaagsan aynu xulin eedda waxbay ku yeelanayaan ma aha qofka meesha mas'uuliyadda qabta kaliya waxaan u baahannahay talo inaad ku yeelataan dadka dalka hoggaankiisa qabanaya waxaan kaloo u baahannahay inaad la xisaabtan muujisaan waxyaabaha dhabta ah wadamo badan baan booqday madaxdooda markaan arko macluumaadka ama fikirka siyaasadeed ee dalka ka haysan aad buu u yaryahay waxaad qaban kartaan waddanka aad joogtaan inaad dalkan saamayn buu Soomaali ku leeyahay dhaqaalo ku bixiya tababarru sameeyaa wuxuu jecel yahay laakiin taladiinu u baahan yahay marka qayb qaato haddaad idinku la talin oo si sax ah ugu sheegin marka qaarkood waxa dhici karta nin dan la inuu wax u sheego oo uu maaragtay meel khaldan u mariyo marka waxaan aad ugu faraxsanahay maanta inaan la kulmo inaan la afuro waxaan idin rajaynayaa in uu maaragtay soonkan aan filaayo kulay qaybtiin waa aad baa ula qabsatay 20 saacadood inuu Ilaahay inoo fududeeyo oo ajar wanaagsan inaga siiyo waxaan aad iyo aad mar labaad iyadoo waqtigii uu dhow yahay aan inaga bogaadinayaa sida sharafta iyo qadarinta leh ee aad ii soo dhaweyseen iyo muddadii aan halka joogay runtii raggii aan la kulmay oo shirkan soo qaban qaabiyana aad baan uga mahadcelinayaa waxaan u baahannahay taageeradiina waxaan u baahannahay taladiina waxaan u baahannahay gacan inaad ka geysataan inuu dalku dib u istaago waana mahadsantiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh لا باب لي الله مداني لا وروري